dowladda Soomaaliya ayaa caawa mar kale diiday in qaadka ka yimaada Kenya uu ka soo dego garoomada Soomaaliya asbuuc kadib markii ay Soomaaliya ku dhawaaqday inay soo celisay cilaaqaadkii kala dhexeeyay Kenya. warqad rasmi ah oo ka soo baxday hay'adda duulista ee Soomaaliya ayaa lagu ogeysiiyey ilaa 70 shirkadood oo ah kuwa diyaaradaha ee ka shaqeeya gudaha Soomaaliya inaanay jirin diyaarad keeni karta jaadka Kenya. warqadan rasmiga ah oo nuqul ka mid ah la soo gaarsiiyay adduunka TV ayaa hay'adda duulista ee Soomaaliya waxa ay ku sheegtay inaanay waxba iska bedelin go'aankii jaadka miirowga loo yaqaan looga mamnuucay garoomada Soomaaliya. warqadan waxaa la faafiyey caawa fiidkii. maxaa xilligan ku soo aadiyey diidmada cusub? siday noo xaqiijiyeen xubno ka mid ah guddiga diyaaradaha iyo shaqaalaha garoonka Aadan Cadde waxaa la helay xog ah inuu dhaqdhaqaaq ka bilowday gudaha Kenya oo dad Soomaali iyo Kenyaan isugu jira ay diyaarinayaan inay jaad soo dhoofiyaan iyadoo aan weli fasax ka soo bixin hay'adda duulista ee Soomaaliya kaasoo ah in jaadka Kenya la keeni karo gudaha Soomaaliya. ujeeddo ganacsi ma la xiriirin kara arrintan? suuqyada Soomaaliya waxaa hadda haysta jaadka laga keeno waddanka Ethiopia ee loo yaqaan Hareeri. madaxda diyaaradaha qaar waxay diidmadan cusub ku micneeyeen in filla Soomaaliya ay rabto inuu suuqa sii haysto jaadka Ethiopia kaas oo 4 qof ee u xiran yahay uu ku jiro madaxweynaha walaalkiis ninka la yiraahdo Xasan Farmaajo. mas'uul ka mid ah shirkadaha diyaaradaha waxa uu sheegay in kooxda haysata jaadka laga keenay Ethiopia inay maalmahan oo dhan u dagaalamayeen in dib loo dhigo fasaxa jaadka ka yimaada Kenya maadaama la soo celiyay xiriirkii labada waddan. maxay arrintan u dhimi kartaa xiriirkii la soo celiyay? dhowaan Soomaaliya waxay sheegtay inay soo celisay cilaaqaadkii kala dhexeeyay Kenya, laakiin Nairobi ayaa si taxaddar ka muuqda u soo dhaweysay warka Soomaaliya iyadoo sheegtay inay eegayso tallaabooyinka xiga ee ay qaado Soomaaliya. hadda waxaa muuqata sababtii ay Kenya uga gaabsatay inay si baaxad leh u soo dhaweyso xiriirka la soo celiyay. dowladda Qatar ayaa ku faantay inay soo celisay xiriirkii labada waddan. faa'iidooyinka ay Kenya ku qabtay Soomaaliya waxaa ka mid ahaa ganacsiga jaadka. mar haddii aanay taas weli fasixin Soomaaliya oo ay caawa diidmadeedii sii adkaysay waxaa su'aalo badan dul yaalaan waxa ay Qataryaanku u dabaaldegeen inay xalliyeen. haddii uu sax yahay tuunka la xiriira in danta dhowr qof oo uu madaxweynaha walaalkiis ku jiro in weli loo sii xayirayo jaadka ka yimaada Kenya waa musiibo weyn. tan iyo markii xukuumadda waqti uu ka dhamaaday ay Soomaaliya shaacisay inay soo celisay xiriirkii Kenya waxaa isha lagu hayay 2 arrimood. mid waa ganacsiga qaadka, midna waa arrinta badda. qaadkii caawa ayaa xaalkiisa la sii adkeeyey waxaana hadda diiradda u wareegaysaa dhinaca arrinta badda. Kenya ayaan weli ka jawaabin diidmada cusub ee Soomaaliya ee ku wajahan ganacsiga qaadka. maxay kula taadiga?